بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرتنا شرفت له كسو دوادا كانالكينا برو أف إنجليز وحينا هادلا أنيقو زكريا محمد أحمد maanta waxaa idin bari doonaa cashirkeena saddexaad oo ku saabsan singular and plural nouns. Nounka oo hal asagoo hal ah iyo asagoo jamac ah. Halkan waxaa ku haysanaa singular nouns iyo plural nouns. Haddii nounska uu hal uu yahay, hal shay uu yahay, waxaan ka hormarsiinaynaa a ama an anagoo fiirinayna inuu ka bilowdo consonant ama vowel. Okay, haddii aan cashirkeena maanta halkan ka bilowno a ring, waxaa ka hormarsiinay a maadaama uu ka bilowdo r, rna waxaan niri inay tahay consonant. Okay, a dog, dog waa a. D-da waa consonant, waxaa isticmaalaynaa a dog hal a. A teacher, teacher waa macallin. A teacher, T-da waa consonant, waxaa ka hormarinay a. An apple, an apple waxaan isticmaalnay an. Maxaa yeelay apple a bay ka bilaabataa, ana waa vowel. An egg, egg waa ukunta ama naalada ama bayt sa u taqaanid. Waxaan ka hormarsiinay an. Sababtu maxay tahay? Waa sidaan soo sheegnay, waxay ka bilaabataa e, e-na waa vowel. Halkan waxaa ku haysanaa plural nouns. Haddaan ku bilowno two rings, laba faraanti ama laba fargashi. Estan waxay ka dhigan tahay inuu yahay plural ama hal iyo wixii ka badan inuu yahay. Waxaan niri laba faraanti. Hal faraanti hadduu yahay waxaan dhahaynaa a ring. Haddii laba yihiin two rings, esa gadaal kaga dareynaa. Three dogs, saddex a. Estan waa jamac ayadana. Four teachers, afar macallin. Esa ayadana gadaal kaga dareynaa. Five apples, shan tufaax. Six eggs, lix ukumood ama lix naalood ama lix bayd sa u taqaanaan. Okay, plural and singular midka ay yihiin say ku ogaan karnaa. Hadduu nounka oo singular uu yahay, waxaa isticmaalinaa ama ka hormarsiinaynaa a or an. Laakiin hadduu plural yahay, uma baahnin labadaas midna inaan isticmaalno. Laakiin xarafka u dambeeya nounkaas gadaal waxaa kaga dareynaa s ama es. S or es. ina s gadaal kaga darno iyo ina es gadaal kaga darno waxay ku xiran tahay xarafka u dambeeya. Insha Allah cashirkan aan ku baran doontaan. Weli waxay dhexda kaga jirnaa cashirkeena singular nouns and plural nouns. Hadduu nounka hal uu yahay ama inuu ka badan yahay. Cashirkeena ugu dambeeya waxaa kaga soo hadalnay hadduu nounka laba uu ka badan yahay anagoo gadaal kaga dareynaa s kaliya. Xarajina ina fahanteen. Halkan waxaa isticmaalinaa ama ku baran doonaa hadduu nounka uu ka badan yahay labo anagoo gadaal kaga dareena es. Okay, haddii nounka xarafkiisa u dambeysa ama labadiisa xaraf u dambeysa ay yihiin ch ama sh or s or x or o or x, waxaa gadaal kaga dareena es. Okay, tusaale ahaan bus waa baska caadiga aan raacno. Bus waxaa u dambeysa s. Haddii s u dambeyso waxaa gadaal kaga dareynaa marka es. Two buses, laba bus. A box waxaa u dambeysa x. maadaama x u dambeyso 3 boxes saddex bas waxaa gadaal kaga dareynaa es.
A watch saacada gacanta ku xiran waa watch waa saacad. 4 watches afar saacadood. maadaama hal ay ka badan yihiin ch na u dambeyso ch maadaama u dambeyso waxaa gadaal kaga darsanaynaa es watches 4 watches. An axe waa misaarta wax ku jirano axe. 5 axes 5 axes axe waxaa u dambeysa x 5 axes markay maadaama 5 ay yihiin 5 xabo halna way ka badan yihiin waxaa gadaal kaga darsanaynaa es 5 axes 5 misaar. A fox waa dabcada. Fox waxaan niri waa dabco. 6 foxes 6 dabcadood ama 6 dabco. A fox waxaa u dambeysa x ayadana sidoo kale way la mid tahay waxaa gadaal kaga darsanaynaa es foxes. A church waa kaniisad. 4 churches afar kaniisadood maadaama church u dambeyso ch waxaa gadaal kaga darsanaynaa es. tusaale midaan idinka ka rabaa inay iga jawaabtaan. tomato waa yaanyo. Okay. 2 tomato. Okay. kan sida ma ku daynaa. A tomato waa hal 2 tomato hal way ka badan yihiin sidaas ma ku daynaa may. xarfaha es aan gadaal kaga raacsiinayno o way nagu jirtaa maadaama tomato o ay u dambeyso waxaa gadaal ayadana kaga darsanaynaa es. xarajina halkaan inaad si fiican u fahanteen oo isla soconno. marka la dib idin dulmar haddana waxaan nidhi haddii singular nouns ama plural nouns hadduu nounka hal uu ka badan yahay oo xarafkiisa u dambeysa ama labadiisa xaraf ay u dambeyso haddii ay ku dhamaadaan ch sh s o and x waxaa gadaal kaga sii darsanaynaa es anagoo ka dhiganayna jamac. halkan waxaa ku haysanaa tomato waxaa u dambeysa o. 2 tomatoes maadaama laba yaanyo ay yihiin yaanyo waa tomato waa yaanyo waa hal xabo maadaama aan isticmaalnay adaan iyo an waxay ka dhigan tahay in nounkaas uu yahay singular oo hal uu yahay. laakiin hadduu laba uu yahay ma isticmaalino. waxaan rajay inaa xasuusataan weli. 2 tomatoes laba yaanyo iyo isa gadaal kaga darsanayna maadaama uu ay u dambeyso. A bus waa hal gaari ama hal bas. 2 buses laba bas waxaa gadaal kaga darsanaynaa es maadaama s ay u dambeyso. A box waa kartoon maadaama hal box uu yahay x noogu dambeyso gadaal markay 3 yihiin 3 boxes waa 3 box waxaa gadaal kaga darsanaynaa es anagoo fiirinayna xtaas. A watch waa saacada gacanta ku xirano. 4 watches afar saacadood. watch ch u dambeyso es gadaal kaga darsanay si jamca noogu noqdaan 4 watches. An axe waa misaarta wax ku jirano. axe maadaama x u dambeyso waxaa gadaal kaga darsanaynaa ex ayadana sidoo kale si jamca noogu noqoto. A fox waa hal dabco oo hal ah. 6
6 foxes 6 dabaco x idin ugu dambayso iyo sagaal ka qadarsanayna a church waa kaniisad a church waa kaniisad ba ka horeyso ayadoo ka dhigan inay singular tahay ama hal shay ama hal noun 4 churches afar kaniisadood maxaa yeelay ch ugu dambayso waxaa gadaal kaga darsanayna yes insha Allah waxaan rajeynayaa inaad fahanteen waxayna balanaa marka cashirkeena xiga hadduu ilaahay idmo waxaan idinkaga tagay sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh